ergada madaxweyne biixi iyo xisbiga mucaaradka ee wadani ka dhex waday dhexdhexaadinta iyo isu soo dhoweynta ayaan weli ku guulaysan inay la kulmaan madaxweyne biixi. ergada ayaa rajo wanaagsan ka qaba inay maanta la kulmaan. ergada ayaa rajo wanaagsan ka qaba inay maanta kulan la yeeshaan madaxweyne biixi, iyadoo ay hore ula kulmeen wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed iyo xisbiga mucaaradka ee wadani. ergada ayaa uu xisbiga mucaaradka ee wadani hore uga aqbalay inay joojiyaan dibadbaxyadii ay ku baaqeen, waxaanay ergadu dadaal ugu jiraan inay madaxweyne biixi ku qanciyaan in la soo daayo xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani khadar xuseen cabdi iyo afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad jaamac batuun oo maalintii saddexaad ku xidhan mandheera, iyo oday cabdi ibraahin cabdulle oo shir jaraa'id oo uu dhowaan qabtay ku taageeray mowqifka uu guddoomiye cira ka qaatay guddida cusub ee doorashooyinka. haddii la soo daayo siyaasiyiinta xisbiga wadani ee xidhan, waxa ay ergadu doonaysaa inay labada dhinac bilaabaan wada hadal toos ah si xal looga gaadho khilaafka sababay kala fogaanshaha dibadbaxyada iyo xadhigga. odayaashan ergada ah ayaa la filayaa inay madaxweynaha maanta la yeeshaan kulankoodii ugu horreeyey, inkastoo aan war rasmi ah laga haynin. ergadan oo wargeyska geeska afrika isku dayay inuu weydiiyo halkay arrimuhu u marayaan ayaanay u suuro gelin, waxaana ergada ka mid ah madaxweyne ku-xigeenno hore axmed yuusuf yaasiin iyo cabdiraxmaan aw cali faarax iyo guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe iyo aqoon-yahan aadan muuse jaambiir.